دawada qaybta afraad wararkii waxaa la dhinaca dunaasiyada caalamka dhan gaanka gaantanida dawasana qiimaha leh barkooyinkii bakorkina haadeen fadlan warar badan iyo xogo badan waxaan u ranay dhinaca Horofadhi TV sidoo waxaan ka codsanaa inaad ku soo biirto Horofadhi TV channelkeena labaad ahana markaasi qaybta ugu weyn ee wararka cusub iyo barnaamijyadan ku soo kordhinay si aysan ku dhaafin waraysiyada barnaamijyada kale xiisaha leh iyo dhammaan qodobada kale ee soo kordhay hubi inaad la socoto subscribe ku tahay si aad u hesho wararka waayo xarabna inay warar ku soo gaaraan sida ay kaaga soo gaaraan Horofadhi media kale barakooyinka bakorkina haadeen dawashana qiimaha leh Liibiya kumanaan qof ayaa wali sii wada banaanbaxa waxayna codsanayaan in dawladda tuugada ah ee khilaafka badan iyo siyaasiyiinta dalkaasi u haysta waxay ugu yeereen markaasi culaada ay ka baxaan waxay kala xidheen magaalada caasimadda Tripoli sidoo kale wadooyinka isku xidhay magaalooyinka Banqaas iyo Misrata ayaa xidhan dab ay qabadsiiyeen xarumaha dawladda ee magaalooyinka Sabha iyo Qarabuli waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan halgankooda tan iyo inta ay ka guuleysanayaan waxay ugu yeereen dhaqdhaqaaqa foosha cunay musuq uu hareeyay iyo waliba xukuumadaha dalkaasi iska cimaamaday dhalinyarada ayaa sameeyay midow dhaqdhaqaaq oo loo yaqaan Beltris Youth Movement oo ay la jeedaan dhaqdhaqaaqa dhalinyarada kaasoo isku xidhay doona da'yarta dalka oo dhan waxayna dalbadeen inay iska kor qaadaan qoqobkan iyo waliba fulxumooyinkan faraha badan ee dawladdu ay ku hayso dawladda dalkaasi Norway ayaa iyaduna noqotay dalkii ugu horeeyay ee reer Yurub ee lacagtii ugu badneed abid u ballan qaada dawladda la yiraahdo Ukraine waxa boqosho ku tagay magaalada Kiev ee xarunta dalkaasi ra'iisul wasaaraha dalka Norway oo halkaas kaga dhawaaqay 1 bilyan oo lacagta Euro-da ah oo dhigata in ka badan 1 bilyan oo doolarka Mareykanka waa 1 milyan oo lacag inay noqon doonto lacagta lagu daafici doono ay yiraahdeen dadka reer Ukraine isagoo shir jiraa'id oo dhagiisa uu lahayay ayuu sheegay inay muhiimadda oo dhan haatan ay siinayaan inay Ukraine ay iska difaacdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Norway Jonas Gahr Støre waxa uu intaas ku daray in dawladdu ay xaq u leedahay in ay daafacdo dimuqraadiyadda wuxuu yiri waxaanu ballan qaadnay 1 bilyan oo doolar waxaan taageeri doonaa dalkaaga iyo dadkaaga si aad isu daafacdaan ilaa iyo inta ka harsan ay yiraahdeen sanadkan iyo waliba ilaa iyo sanadka soo socda 2023 waan sii wadi doonaa dagaalkani waxa uu ahaa mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga international law sida daraadeedna waxaad xaq u leedahay inaad isdaafacdaan anana waxaan xaq u leenahay inaan idinku caawino inaad naftiina daafacdaan ayuu yiri isagoo dhanka kale sheegay inay muhiim tahay inay si xoogan ay u taageeraan ayuu dhaqdhaqaaqyada ay wado dawladdaasi ay isku difaacayso arrintan waxay waqtay mid kale oo dabka ku sii huri doonta isla markaana cari doonta cadhada baahsan ee Moscow ka taagan taasoo markaasi noqon doonta mid adag oo markaasi dalalka reer Yurub iyagu ay kala hadaafaan dhanka kalena iyadoo Israa'iil ay sii wado inay qoditaan ku sameeyso qaar ka mid ah dhulka ama badda la isku haysto ee isku haystaan dalalka Lebanon iyo Israa'iil ayaa Hezbollah oo goortii horeysay ku cad ku martay inaysan yeeri doonin inta ka kamid ah dhulka reer Lebanon la iska qoto waxay weerar dhinaca cirka ku qaaday xarunta loo yaqaan gaaska dabiiciga laga qodaye Krish halkaas oo la sheegay in maraakiibka kala socda dalalka Greek iyo dalkaasi Britain ay ka wadaan qaban qaabaxo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa la istaaray kadib markii la ogaaday in gantaalo iyo waliba diyaarado drones ay ku soo socdaan nooca suicide-ka loo yaqaan goobahaasi diyaarado cadow oo calaadaysan ayaa hawada Israa'iil soo galay isla markaana aaga biyaha ee ganacsiga ayaa laga hortagay ayuu yiri war qoraal oo soo saaray afyaanka ciidamada qalabka sida Israa'iil kaasoo sheegay in dantaansiga Hezbollah loo dulqaadan doonin si kastaba noqotay Hezbollah ayaa ka digtay in aysan u dulqaadan doonin in la iska qoto dalkeeda sida hadalka u dhigtay dhowr jeerna waxay sheegtay in arrintaasi si xooggan oo mugle ay u hortagi doonto ra'iisul wasaaraha Lebanon ka bixin ayaa asaguna markii ugu horeysay wuxuu cadeeyay mowqifka dalkiisa ee khilaafiyada hursan ee dhawaan dilaaci doona qaar ka mid ah dalalka khaliijka iyo kuwa kale Carbeed oo sheegay in weligood dhexdhexaad ka ahaanayaan shir isagoo ka hadlayay wasiir heer sare ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee qaar ka mid ah dalalka Carabta ee magaalada Cairo ayuu sheegay in dalkiisu uu yahay dal masaakiin sida daraadeedna uu isagu dhexdhexaad ka noqon doono cid kasta oo Carbeed oo isku dhacda annaga wuxuu yiri waxaan ballan qaadanaa laba shay wata koobaadi hal dal oo Carbeed oo wadamada Carabta ah inaan dalka iyaga looga soo duulin oo wax dhibaato looga geysan oo aanan ku kaydin mucaarad iyo dad nacab ku kacsan waa qodobka labaadna waxa uu ballan qaaday oo hoosta ka xariiqay in aysan la kala safadoonin haddii dalalku isku dhacaan dhammaan wuxuu sheegay in hal siyaasad kaliya iyagu leeyihiin taasoo ah siyaasadda dhib la'aanta ee dalalka Makati waxa uu sheegay inay sidoo kale ka rabaan inay sii wadaan dalalka Carbeed inay taageeraan xilligan adag dalkiisa iyo dadkiisa oo xilli adag ku jira wuxuuna sheegay inay taa ka wada rabaan dalalka oo dhan intaasi kaga muharine wuxuu kaloo ka hadlay arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay in dalkiisu uu mar walba amniga qaranka ee dalalka Carbeed uu u yahay mid lamid ah kiisoo kale si adraadeedna aan laga filin inay ciidamada dalkiisa ay adeegsato
sida halka loo dhigay gobolka Idaho waxaa ka dhacay shil dhinaca badda ah kadib markii ay doon ay halkaas ku degtay sida ay sheegayaan warfidiyeenada iyo mas'uuliyiinta gobolka Idaho ee dalka Mareykanka 4 qof ayaa ku dhintay kadib markii doon ay ku degtay webiga Idaho River sida ay sheegayso xukuumadda gobolkaasi ka jirtay ismaamul goboleedka waxay sheegeen in 4 qof oo u badnaa rag meydkooda laga soo saaray biyaha guntooda kadib markii ay doontu ay degtay isla markaana aysan wax xiriir ah aysan la soo sameeyeen qaybta gargaarka degdega ah xilligan oo kale iyo dalka Mareykanka ay dadku aad ugu safraan biyaha isla markaana waxay aadaan xilliga fasaxa ay qaataan oo loola jeedo markaasi inay u kala ambabaxaan inta badan deegaanada ay isleeyihiin qof walba waxaad ku soo qaadan kartaa waqti sida caanka ay ka tahay xilliyada iskuulada ay xidhan yihiin dalka Mareykanka daawasha qiimaha leh wararka wacala dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan qodobka ugu dambeeya ee aan arrinta kaga tagi doona waxa weeye nin dhalinyaro barta YouTube-ka aad iyo aad u isticmaali jiray naanaysna ku soo gali jiray loo jeeday Technoblade ayaa waxa uu damayntii u soo diray geeridiisii isagoo si gariyoonaya fariin ku socota aabihii oo ka wakiil ahaa Technoblade oo laakiin magaciisa caadiga ah rasmiga ah uu ahaa Alex ayaa ka sheekeeyay in uu wiilkiisu uu ahaa saaxiib ama nin dadka oo saaxiib la ah 11 milyan oo qof ayaa kula socday bartiisa uu kula ahaa markaasi YouTube waxaana aad iyo aad u halkaas u soo gali jiray markaasi barnaamijyo game iyo waliba qalab kale teknoolajiyada wuxuuna magaciisa ku soo gali jiray Technoblade waxa uu yiri kani waa Technoblade waxaana rabaa ayuu yiri salaan inaan idin soo diro haddii aad daawanaysaan fariinteeda waan dhintay ayuu yiri tani waa sida fariin macaan salaameyn ah oo ka timid Technoblade isagoo markaasi sidoo kale ka hadlay arrimo ay ka mid tahay inuu u rajeynayo dadka kale isaga ka dambeeya inay in badan noolaadaan 23 jir kaliya ayuu ahaa waxaana la sheegay in uu caafimaadkiisu u xumaaday kadib markii la ogaaday in uu marayo xanuunka kansarada ama kansar heerka afraad fariintiisa ayaa waxa ay qaybta dambe ay yeelatay soo jiidasho la yaab leh kadib markii uu la hadlay dadkii wax ka iibsan jiray ee bartiisa waxyaalaha uu soo bandhigi jiray wuxuu yiri aynu wada fadhiisano oo wadaagno hadalkii u dambeeyay waan ka xumahay wiil in badan baan iibiyay sanadkii la soo dhaafay balse way mahadsan yihiin ayuu yiri qof walba oo iibsaday fanaanadaha iyo waxyaabaha kale waxaan rajeynayaa inaan idin sheego ayuu yiri in walaaladay ay aadi doonaan ayuu yiri iskuulka heerka labaad ee marka high schoolka laga baxo iskuulka waxa college-ka loo yaqaan haddii ay saas doonayaan waayo anigu inaan ku cadaadiyo marhaba ayuu yiri wuxuu kaloo sheegay in uu kaliya u yiraahdo oo mahadsantihiin dhamaantiin isagoo sheegay xataa haddii 100 nololood la sii lahaa uu mar walba door bidi lahaa inuu noqdo Technoblade oo la jeedo qaabkii uu noolaa iyo habkiisii intaasi markay dhamaatay waxaa baraha bulshada dalka Mareykanka is qabsaday dadka ugu caansan dadka Mareykanka ay ka mid yihiin fanaaniinta dadka kale ee markaasi maalqabeennada iyo dadka kale kumanaan ku gaaray oo tacsi u diray qoyska aabihii oo isagu markii dambana akhrinayay hadalka ahaana ninka fariinta soo diray ayaa waxa uu sheegay in uu aad iyo aad ula xanuunsanayo in uu lumiyay wiil dhalinyaro ahaa oo uu doonayay inuu mustaqbalkiisa wax badan ka arko amana